Asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada waxaan idinka codsanaa in aad follow noo saartaan page-ka iyo like. Muuqaalkan waxaa looga hadlayaa kulanka galabta u dhexeeya labada kooxood oo kala ah Liverpool iyo Chelsea waxaana ka xusi doonaa kulamadii ay soo wada ciyaareen iyo guulaha ay kala gaareen. Haddaba ku soo dhowaada muuqaalka xaqiisana siiya mahadsanidin. Labada kooxood ayaa ah kuwa isku dheeli tiran marka la eego kulamada horyaalka. Liverpool ayaa 23 ciyaarood guul gaartay halka Chelsea-na ay badisay 21 ciyaarood 16 kale na barbaro ayay ku dhammaatay. 6 kulan oo ay horyaalka Premier League ku kulmeen. 34 ciyaarood ee ugu dambeeyay Liverpool ayaa badisay 11 ciyaarood halka Chelsea-na ay adkaatay 10 ciyaar 13 ciyaar na barbaro ayay ku dhammaatay. Liverpool ayaa badisay labadii kulan ee hore oo ay la ciyaartay Chelsea. Chelsea ma badin kulan bannaan ka ah 6dii ciyaar ee ugu dambeeyay. Sterling ayaa fursadaha ugu badan u abuuray waana 4 fursadood. Macalinka Liverpool ayaa laylin doona kulankiisa kumaad oo heer caalami ah. 5tii ciyaar ee ugu dambeeyay oo ay Liverpool ciyaartay waxa ay badisay 2 ciyaarna waa laga adkaaday. 1 ciyaarna barbaro ayay ku dhammaatay. 5tii ciyaar ee ugu dambeeyay oo ay Chelsea ciyaartay 3 ka mid ah waa laga adkaaday. 1 ciyaarna guul ayay gaartay halka ciyaar soo hartay barbaro ayay ku dhammaatay.